سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa ardayda bulshada Soomaaliyeed ee jecel inay wax ku soo bartaan dalka dibadiisa waxbarasho heer jaamacadeed oo free ah. Halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa scholarship-kii la magac baxay Islamic Development Bank qaybtiisii master program-ka sida loo xareysto ayaan halkan idinku soo bandhigi doonaa hadduu alla idmo. Haddaba waxa aynu tegaynaa googlaha kadibna waxaynu ku qoraynaa Islamic Development Bank. Kadib waxa uu inoo soo saarayaa website-kan. Waxaynu kasii tegaynaa scholarships. kadibna apply now baynu odhanaynaa sidii hore aynu page undergraduate-ka ugu xareynay. pagekaas uu inoo soo saaray. haddii aad user hore iyo password hore lahaydna halkaasaad ku dhufanaysaa loginkaas. sidoo kale haddii aad mid cusub samaysiinaysana register here. marka iminka mid cusub aynu samaysan doonaa. first name-ka haddaba pagekaas ayuu inoo soo saaray contact information-ka. pagekaas formkaas aynu buuxin doonaa si aynu u samaysano account cusub. waxaynu samayn doonaa magaca shirkadda ayaynu ku diiwaangelin doonaa si aynu ilo kan waa mid tusaale ah. marka last name-kana waxaynu ka dhigaynaa agency. tusaale ahaan sanada uu dhashay. halkaa waxaynu gelinaynaa qofku sanadka uu dhashay. waxaynu iska gelinaynaa tusaale ahaan bisha koowaad. email-ka. sidoo kale nationality-ga halka uu kasoo jeedo dhalashada dalkiisa. sidoo kale genderkana waxa weeyaan lab iyo dhadig ku yahay male. religionna waa diinta hooste Islam. sidoo kale numberka shirkadda aynu gelin doonaa 252. adresska sidoo kale mainst adresska ayaynu halka gelin doonaa. sidoo kale country of residence halka dalka uu degan yahay hadda. kadibna haddaba gobolka uu kasii joogo waqooyi galbeed. sidoo kale marka city hargeysa caasimadaada ay taabanaysaa. submit baad odhanaysaa markaad intaa dhamaysid waad gudbinaysaa. okay wuxuu ku yidhi thank you for registration complete. waad dhammaystirtay diiwaangelintaadii. haddaba si aad dib u gashid login here baad odhanaysaa. haddii aynu halkan ku qorno dib inoogu geli maayo waayo waxa uu inaga doonayaa activation buu kuu soo dirayaa. code buu kugu soo diraya gmail-kaaga. markaa si aynu u tagay gmail-kaaga dib u gal. hadda waxaynu eegaynaa gmail-ka uu inoo soo diray waa ka ugu sarreeya. wuxuu yidhi your registration has been completed. marka username and initial password. username iyo passwordku halkaas uu kugu soo qoray username-kaaga oo gmail-kaaga iyo password-kaaga oo kan ah. kadibna intaasaynu ku gelaynaa. waxaan kusoo noqonaynaa
account-keenii kadibna oo ka passwordkii baa soo koobiyeysta halkaasaan ku qortay ayaan ku dhuftay login. dan wuxuu ku yidhi password cusub samayso. horta waxaad gelinaysaa passwordkii hore, markaad gelisid password cusub ayaad samaysanaysaa. haddana submit ayaad taabanaysaa markaad password cusub aad samaysatid. wakaa hadda waa inoo galay wajahadii facekii kooban. hadda waynu ku guuleysanay sidii aynu account cusub uga samaysan lahayn Islamic Bank Development Scholarshipska. hadda waxa uu inoo galay account-keenii. kadibna waxaad tegaysaa markiiba halkaa profile-kaaga ee tegaysaa, waxaad odhanaysaa update profile. markaynu profile-keena tagno, profile-keena ku dhufanay kadibna update profile aynu kusii dhufanay, waxaa inoo soo saaray wajahadan ayuu inoo soo saaray. kadibna waxaynu sii teginaa sidan waa sax imika halkii hore ayaan kusoo buuxinay emergency contact. emergency contact waxa weeyaan waa degdeg haddii lagu baahdo oo laga waayo nambarkaaga, qof kale oo lala soo xiriiri karo. name of contact person oo qof kale lala soo xiriiriyo magaciisa ayaad ku qoraysaa. relationship waxyaabo waxaa idinka dhexeeya waa waalidkaaba maxaaskaagiiba, address halka uu joogo, addresskiisa, telephone numberkiisa iyo emailkiisa. kadibna safe ayaad taabanaysaa. hadda waxaan ku noqonaynaa homekeenii. waxaan tegaynaa apply for scholarships. view in progress-ka waxaa la tagaa marka aad dhamaysid application process-ka, aad buuxbuuxisid, aad doonaysid aad submit garaysid, ayaad doonaysaa kulba application-kaagu xaaladda uu marayo, miyaa la aqbalay mise weli waa pending oo weli waa waxaa lagu wadaa baadhis. marka halkaas view progress-kaasa tegaysaa kulba. imika waxaan tegaynaa apply for scholarships. hadda waa bilowkeenu. halkan ayuu inoo soo saaray. kadibna waxa aynu kasii dooranaynaa haatan waxa aynu xareynaynaa master programka. marka master scholarship program ayaynu kasii dooranaynaa. kadibna apply now baynu kusii dhufanaynaa. markaad apply for scholarships aad taabatay wuxuu kusoo saaray wajahadan background-kan. kadibna wuxuu ku yidhi ta koobaad miyaad ka mid tahay dalalka ay ku midoobeen dalalka islaamku or muslim in the member countries amba kama mid tihid. eeg haddii aad ka mid tahay dalalka islaamku ku midoobeen waxaad odhanaysaa haa. miyaad scholarship kala xareysatay waa maya. kan wuxuu ku yidhi miyaad ogoshahay haddii aad ku guuleysatid scholarshipkan inaad bartid caafimaad, haa waad odhanaysaa checkin caafimaad. kan wuxuu ku yidhi is your proposed field-ka amba aad xareysanaysid amba tusaale ahaan oo kale aad doonaysid inaad soo baratid miyuu ka mid yahay programyadan halkan ku jira, haa waad odhanaysaa. submit baad odhanaysaa. you have successfully the quiz-ka yar waad baas garaysay, proceed baad odhanaysaa si aad hore ugu sii socotid. qaybtan marka uu ina keeno academic background ayaynu ka horeynaynaa. academic background backgroundka waxbarashadaada
maadaama aad iminka master xareysanaysid heer jaamacadeed baatay bachelor degree marka waa inaad halkan ku buuxbuuxisaa jaamacadaada magaceedii howlahaas. waxaan ku horeyna haddaba ta ugu horeysa oo ah bachelor degree university name. bachelor degreegaaga jaamacaddii aad ka qaadatay magaceeda ayaad halkan ku qoreysaa. sidoo kale halkan markaad timaado bachelor study country, dalkii aad ka qaadatay bachelor degreegaaga ayaad halkan ka dooranaysaa. sidoo kale facultygii aad baratay, tusaale ahaan facultygaan bartay waa business administration. sidoo kale qeybtan kasii bartay waxa weeye waa accounting saa odhanaysa. bachelor study duration of study, intii sanaad dhiganaysay bachelor degreegaaga ayaad ka dooranaysaa. bachelor study GPA-ga aad ka haysatay bachelor degreegaaga. sidoo kale waqtigii aad ka qaadatay waqtigii aad qalin jabisay ayaad halkan ka dooranaysaa. membership extra curricular activities waxa weeyaan waqtigii aad jaamacadda dhiganaysay dhaqdhaqaaqiyo aad u qabatay si mutadawacnimo ah ay miyay jireen amba aad xubin ka ahayd ayaad halkan ku qoraysaa. haddii ay tusaale ahaan oo kale dad bulshada maxay ahayde deegaankiina waxyaaba aad ka wacyigeliseen, waxyaaba aydu si mutadawacnimo aad u barteen ayaad halkan ku qoraysaa. any other relevant factors or achievements, guulo kale ood gaadhay ayaad halkan ku qoraysaa, sida tusaale ahaan oo kale shaqooyin aad qabatay waqtigii jaamacadda aad ku jirtay, projectyo aad dhamaystirtay. tusaale ahaan oo kale imika business administration baan ahaa, accounting baan kasii ahaa, business planyo aan maxay ahayde aan qoray, sidoo kale uu hirgalay uu guulahan ka gaadhay ayaad halkan ku qoraysaa. markaa submit baad odhanaysaa. qeybtan kale ayaynu imanaynaa professional backgroundkaaga. waxa weeyaan maadaama aad master tahay badanka waxay u badiyaan inaad qof shaqeeya. marka name of institution amba organization where you work now, meesha aad ka shaqaysid amba shirkadda aad ka shaqaysid magaceeda ayaad halkan ku qoraysaa. sidoo kale country of your current workplace, waxa weeyaan dalka aad ka shaqaysid ayaad ku qoraysaa. meesha aad ka shaqaysid shirkadda aad ka shaqaysid emailkeeda halkaa geli. sidoo kale job titleka aad ka haysid shaqadaas ayaad halkan ku qoraysaa. supervisor's name, supervisorkaaga magaciisa ayaad halkan ku qoraysaa. sidoo kale supervisor's titleka uu haysto supervisorkaaga ayaad halkan ku qoraysaa. sidoo kale supervisor's telephone, halkanna waxaad ku qoraysaa telefoonka supervisorkaaga. waqtigii employment markaynu ka sheekeynayno, employment start date of current workplace, waqtigii aad shaqada bilowday. sidoo kale position levelka aad ka taagantay shaqada aad haysid, ma bilow baa tahay, ma dhexdhexaad baa tahay, mise muddo aad joogto senior baa tahay. name of years you have been working, intii sanadood ead ka shaqeynaysay in general guud ahaan baad u sheegaysaa. submit baad odhanaysaa. qeybtan kale oo ka halay master degree study proposal, halkan proposal baad weeyaan ayuu awoodda saaraya mastertaada. briefly explain the problem solving and development relevance of your research study waxa aad soo baranaysaa amba researchka kasoo diyaarinaysid waxaad ka sheegtaa, aad sharaxdaa dhibaatooyin bulshadaada ka haysta waxa aad soo baranaysid iyo sidii aad u xalin lahayd ayaad halkan maxay ahayde ku sharaxaysaa. sidoo kale duration of study under the master program is for 2 years maximum, wuxuu ku yidhi muddada ugu badan ee masterta aad kusoo diyaarin kartaa waa 2. marka halkan 3 option buu kusoo kala dhigay aad kala dooranaysaa. ma coursyada oo keliyata ayaad dhiganaysaa oo mastertaada, mise researchka oo keliyata aad soo diyaarinaysa, thesis book ayaad qoraysaa oo keliya, mise both labadaba. marka waxaa ku wanaagsan badanka inaad both iska dooratid labadaba. haddii aad optionkaadaas kale, haddii kalena labada mid gooniyo dooro. master study proposal in what language will you be studying, wuxuu ku yidhi luqadee ayaad isleedahay kusoo diyaari mastertaada, English, Arabic, French, Francis. major field of study maxaad isleedahay soo diyaari.
tusaale ahaan oo kale waxaan isleeyahay soo diyaari education waxbarasho, wuxuu ku yidhi subfield kasii dooro halkeed qeybtay ayaad kasi leedahay ka diyaari, high level training baan odhanaya waa tusaale, submit ayaan odhanaya. Additional information waxa weeyaan waa warbixino dheeraad ah ayaad halkan ku bixinaysaa haddii aad ku guulaysatid buu ku yidhi scholarshipka. miyay jiraan dalal aanad tegi karin oo ay jiraan waxyaabo ku xadidaya inaad dalalkaa tagtid? tusaale ahaan oo kale haddii aad dembiye ka gashay, haddii dhibaato hore kaa soo gaadhay oo aanad tegi karin dalalkaas, adugu miyay jiraan buu ku yidhi dalal aanad tegi karin? noobaad odhanaysaa. waayo iyagu markay su-aasha ku weydiinayaan scholarshipkani dalal badan haddii aad ku guulaysatid dalal badan oo islaama ayuu mid ku geenaya midkood. marka waxa weeyaan waa inaanad wax dembiye iyo wax dhibaata iyo waxyaaba noocaas oo xadidaya inaanad tegin aanay jirin. marka noobaad odhanaysaa have you applied for an ISP scholarship earlier? miyaad hore u xaraysay scholarshipkan? haddaad xaraysayna haa, haddaadan xarayna maya. was the scholarship awarded for your undergraduate studies? miyaad hore ugu guulaysatay waqtigaagii bachelor degreegaaga? maya baad odhanaysaa. haddii haana ay tahayna haa. do you have any special needs, physical needs? miyay jiraan jirhaan haddaanad u caafimaad qabin tusaale ahaan oo kale miyaad lug laadahay, miyaad il laadahay, handicap baa tahay, waxyaaba noocaasa. do you have annual income or any source of income? miyay jiraan dakhli kusoo galaa amba ilooyin ay kaasoo galaan miyay jiraan? haa amba mayaad odhanaysaa. haddii aad shaqaysid haa baad odhanaysaa, haddii aad shaqayna maya. provide details of your language proficiency. halkanna waa sida tii hore aynu kusoo aragnay oo waxa weeyaan waxaynu gelinaynaa darajooyinkii aad luqadda aad haysatid, shahaadada ka haysatid internationalka ah ayaad halkan darajooyinkii gelinaysaa. sida tusaalahaan oo kale haddii aad english aad ka sheekeynaysid aad haysatid oo wayna shahaado international aad halkan ku magacowda sida IELTS, TOEFL iyo qaar kaloo lamid oo international ah. wayna readingkii intaad ka keentay, writingkii, speakingkii, waqtigaad qaadatay, certificate-ka haddaad haysatid sifaad odhanaysaa. haddii kalena waad iska dhaafaysaa. professional training courses upgrading waxa weeyaan miyay jiraan koorasyo amba trainingyo aad qaadatay, aad hore u qaadatay? haddii jiraanna waxay kaa caawinayaan application processkaaga. marka halkan ayaad gelinaysaa fiilkii aad maxay ahayday aad ka qaadatay. tusaale ahaan oo kale human resource management sponsored by halkii aad ka qaadatay amba institutekii aad ka qaadatay, locationka halka ku yaalo, datekii iyo waqtigii aad qaadatay. safe aad odhanaysa oo siga tegaysa. halkana name 3 referees waxaad qoraysaa 3 macalin amba 3 professor oo waqtigaagii jaamacadda wax ku dhigay eed halkan ku magacaabaysaa. oo tusaale ahaan oo kale waxun bay ku noqonayaan markhaati oo waxay kaa caawinayaan inay scholarshipkaaga application processkiisa ay ka caawinayaan. name magaciisii, relationshipkii wuxuu xiisaduu ku dhigi jiray amba hadduu ku ahaa dean amba academiga jaamacadda haystay. halkanna saddex magacood ku qoraysa iyo waxyaabihii ay agtaada amba tusaale ahaan kale hadday macalinku ay amba dean ay ku ahay. safe baad odhanaysaa. kaana submit baad odhanaysaa. attachmentskii halkan waynaad mar walba ogaataa waa inaad ku gudbisaa document walba ood gudbinaysid asa PDF ahaan. ta koowaad aad gudbinaysa waa maxay? waa national ID amba passportkii, passportkaaga amba kaarhka passportkaaga la socda, upload amba national amba ID dhalashadaada, upload curriculum vitae CV. wayna sidoo kale CV aad qoratay aad halkan gelisaa. CV waxa weeye education backgroundkaaga, howlahaas aad kaga sheekeynaysid. sidoo kale upload certificate waa inaad shahaadadii caafimaadkaaga aad halkan gelisaa. sidoo kale waa inaad 3dii macalin eed halkii hore
kusoo sheegtay markhaatiga ku noqonayay inaad jaamacadda dhiganayso iyo howlahaas. wayna 3 waraaqaad kasoo qorataa oo ku noqda recommendation letter. halkana upload wayna bachelor degree GPA-gaaga aad gelisaa. sidoo kale upload work experience certificate wayna sidoo kale halkan aad gelisaa tusaale ahaan oo kale waraaqad khibrad amba shahaado khibradeed oo shaqadaada ah. tusaale ahaan oo kale halka waxaad gelinaysaa wuxuu uga jeedaa waraaqad ayaad kasoo qaadanaysaa shaqadaada oo waa recommendation letter shaqadaada ka socota. marka tan upload letter or evidence of pre-admission waxa weeyaan waraaqad caddeynaysa inaad half admission haysatid if applicable haddii jirto ayaad gelinaysaa. waa inaad halkan upload language certificate oo Cisco waa inaad halkan gelisaa luqadda aad haysatid shahaadadeeda amba intii aad ka keentay darajadii aad ka keentay waa if applicable haddaad haysatid. halkana full research proposal PDF halkan wuxuu ku yiri full research proposal soo gali oo PDF ah. proposalkan haddaba fullka ah ee dhamayska tiran waxa aad ka halka aad soo gelinaysid waxa aad ka diyaarinaysaa fiilka aad soo baranaysid mastertaada ayaad full research proposal ka diyaarinaysaa. kadibna PDF ahaan ayaad halkan soo gelinaysaa submit badanaysaa. halkana sidaan usoo sheegnay waxa weeyaan waxaad caddeynaysaa tigtaad wada saaraysaa in aad ku qanacsan tahay wixii kasoo baxaa. sidoo kale informationadan aad bixisay inay sax yihiin. sidoo kale waxaa halkan ku leeyahay haddii aad waxyaabo information khaldan aad bixisay inay resultigaaga wax yeelayaan oo aanad ku guuleysan doonin scholarshipkan. markaa tigtada wada saaraysa submit baad odhanaysaa. kaasina waxa uu ahaa sida loo xareysto scholarship development bank qeybtiisa master programka